wuxuu leeyahay todobada hore la ciyaara todobada ku xigtana edbiya todobada ku xigtana maxay la saaxiiba way loo la saaxiibaya ardaas weydiin bay mudan tahay ilmuhu markuu teenage markuu ilmaha noqdo isbedel fara badan baa ku dhaca mid biologically baa ku dhacda hormoneski baa isbedelaya wuxuu isku arkayaa gabadhi wiilku waxa laga yaabaa inuu xaadir halkan isku arko waxa laga yaabaa timo inuu isku arko waxa laga yaabaa inuu dareemadiisa isbedelaan gabadhi sidoo kale isbedelaa ku dhacaya identity crisis isgaran waa ku dhaca ilmihii yaryaraa ay la ciyaari jireen ku dhex jireen waa ka soo baxeen oo waxa leeyahay ilmaati marka lagu dhex arko dadkii waaweynana wali ma gaadhin xilli waxay ku jiraan aad u adag oo u dhib badan oo u baahan in la dhageysto in la saaxiibo walidaalka ilmuhu yani arimaha baraarujinta madaxa weey ilmuhu xilliga dadku inta badan dhalinyaradu waxay bartaan muqaddaraadka way bay u bartaan way wuxuu raadinayaa to fit in meel uu ka tirsanaado raadinaya identity crisis baysa isgaran waa baahaya ciyaalkii lama ciyaari karayo gurigi waa lagaga qaylinaya bani aadamkuna dabci ahaan meesha dhibtiisu ay ka imanayso isha dhibtiisu ay ka imanayso ka carara qof waliba dhibku waa dhacibiya carruurtuna waa la mid guriga waxa laga yaabaa in laga qaylinayo carruurtii lama ciyaari karayo dadkii waaweyn ma soo dhaweynayaan ilmo yar bay u arkaan to fit in meel uu ka tirsanaado raadinaya bani aadamkuna waxa weeye social animal bana bani aadamku waxa la yiraahdaa waa kaain wada nool oo social ah qofku wuxuu baahi wuxuu leeyahay social baahi wuxuu baahay cid ula sheekaysto baahi wuxuu baahay cid ku sir qarsado marka waxa dhacaysa meel kasta in ku sigaar ka cabaya inuu sigaarkii tijaabiyo ka qayilay inuu qaylaadi la tijaabiyo ka filimada aad inuu filimkii la tijaabiyo ka shashada cabay inuu shadii la tijaabiyo sababtu maxay tahay wuxuu isku dayayaa in uu la yiraahdo naga mid baa tahay waad noo eeg tahay soo dhaw inta badan saas ay ku bartaan marka waalidku hadduu inta dareensan yahay aabiyo hooyadu haddii inta dareensan yihiin muhiimadeedu wata marka inay la saaxiibaan oo aabuhu wiilkiisa la saaxiibo waqti la qaato aanu kala sheekaysanaynin iskuulkii muxuu ahaa gurigii arrimihii guriga ku saabsanaa wixii iskuulka ku saabsanaa saaxiibka idinka weydiinaya saaxiibadiina maxaad kala sheekaysataa saaxiibka maxaa lagala sheekaystaa sidiisaba ma arrimo guriga lagala sheekaystaa arrimaha guriga lagama sheekaysto saaxiibadu waxa lagala sheekaystaa arrimo kale mararka waxyaabo ugu xun lagala sheekaysto waxa kamid dadka in lagu xanto soo dad kale ka sheekeynaysan dhacdooyin baad ka sheekeynaysan taariikh baad ka sheekeynaysan wax dunida ka jiraad ka sheekeynaysan magaalada wax ka socda ka sheekeynaysan idinka isku sir qadsanaya mashaakil idinka xataa gudiinayda haysataan cid kala tashanaysa saaxiib baad u raadsanaysaa ilmahan marka intaas oo dhan ba hadii uu helo aabo waxa la yiri wiil Carabiya la weydiyo la yiri aabaha iyo muxuu ahaa saaxiibka keebaa safar la gali lahayd markaasuu yiri aabahay hadduu saaxiib ii noqon lahaa aabahay baan safar la gali lahaa hadduu saaxiibkayga ii noqon lahaa way saaxiibka intaas oo dhan saaxiibka waxaas oo dhan baa lagu qarsadaa marka hadii waxa oo dhan ay noqoto ilmahan markaad aragtid uu noqoto ma cuntay ma seexatay ma cabtay casharka ma ka shaqaysay maxaad waxan u yeeshay maxaad saa u yeeshay maxaad saa u yeeli weyday ay waxaas oo dhan noqoto one way communication xiriirku yani waa two way communication haday noqoto laakiin amar oo dhinac ka socdo aniga saan waa laga sii cararaya laakiin inaad ilmaha la sheekaysto aad kala sheekaysato maxay saaxiibnimadiinu iyo xiriirkiinu si uu u fiicnaado wixii uu dadka kale ula tagi lahaa uu dadka kale uga baahan lahaa inuu isagu kuula yimaado kala sheekaysto waxaad u baahantiin inaad ka sheekaysataan wax aan la xiriirin iskuulkiisa waxbarashadiisa guriga khaladaadka uu galay wax ka baxsan taa macnaheedu waxa weeye hawl extra kaaga baahanta qofkan waxa uu danaynayo ihtimaamaadkiisa waxa uu jecel yahay waxa uu ku riyoonayo saaxiibadii waxay ka wada hadlaan arrimahaas oo dhan waxa uu jecel yahay waxaas oo dhan baad u baahan tahay inaad u kurgasho oo wax ka ogaato si aad uga sheekaysato qofkuna waa qaacida arrintan hadda sheegi doono waa qaacida marka laga hadlayo cilaaqaadka u ah foundation waa saas waa waxa weeye qofku sidiisaba wuxuu jecel yahay in laga hadlo wax isaga uu danaynayo qofku wuxuu jecel yahay qofka bani aadamkiisa wuxuu jecel yahay in laga sheekaysto wax isagu jecel yahay qof walba inaga naga mid ah qofka ku waraysta ee arrimaha ku walgelinaya ka waraysta ee waxa aad danaynaysa marka kugu taagan kala sheekaysta dadka kale waa kaaga dhow yahay